xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa saakay xarunta golaha shacabka ku soo xaadiray iyadoo xildhibaanada ay kala taageerayaan ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ujeedada kulanka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee saakay ayaa ahaa dhageysiga mooshin ay xildhibaanada qaarkood ka keeneen golaha xukuumadda. Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo shir gudoominaya kulanka xildhibaanada baarlamaanka ee maanta aysan u suuragelin inuu kala xakameeyo xildhibaanada waxaana muuqanaya xildhibaano ka aragti duwan gudoomiyaha kuwaas oo mararka qaar aragtiyooda ku soo bandhigaya qaabkan. xildhibaanada qaarkood ee taageera arinka mooshinka ayaa aaminsan in buuqa ka dhashay xarunta golaha shacabka maanta ay ka dambeeyeen xildhibaanada diiday in kalsoonida lagala noqdo xukuumadda. kadib waxa lagu kala baxaa waa cod dadka kan waa 20 nin oo difoodsiyaal u ah ra'iisul wasaarahana anigu waxaan aaminsanahay waa meyd meel yeelo oo qabuur u baahan in la geeyo codkaasa qabuur lagu geyn lahaa ra'iisul wasaaruhu xilkii wuu waayay 440 xildhibaan ayaa mooshinka soo qoray halkaas ay yeelaan magacyadooda in la qeybiyay diidiyihiin midna inaad tirada ku dirsatiin la rabaa hal qof oo kamid ah baarlamaanka hadduu foodo inuu sameeyo oo damco waa la sameyn karaa. dadkii meesha taagnaa waxay ahayn dad yar oo 10 qof ah sababkuna wuxuu yahay markay ogaadeen mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee laga keenay xukuumadda 140 xildhibaan mudane ay keeneen in ugu yaraan 50 kale ay raali ku noqdeen mooshinkaas markii ay arkeen inuu yahay mooshin sax ah in la keenana uu sax ahaa xal kale oo la mari karaana uusan jirin xukuumaddaasna inay kalsoonida kale lagala laabtay ay raali ka yihiin. dhinaca kale xildhibaanada qaarkood oo saxaafadda kula hadlay xarunta golaha shacabka ee Muqdisho ayaa aad ugu xumaaday waxa maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka iyaga oo sidoo kale aaminsan in hadda aysan wanaagsaneyn in kalsoonida lagala noqdo xukuumadda Soomaaliya. maanta waxa meeshan ka dhacay waxa ka masuula gudoomiyaha baarlamaanka isaga mooshin ka keenay isaga qaabilay mooshin xaaraana oo soconay baarlamaanka inuu kala duri raba la kala tagi maayo baarlamaanku waa walaalo dibaa la isla soo wada maray maalintii la dooranayay baarlamaanka waa la baryootamayay waray ka jooga ha kala jabina laaluushka daaya. waxaan rabnaa waxa xukuumadda lagu eedeynayo waxaan rabnaa sababta mooshinka loo keenay waxaan rabnaa ujeedada ka dambayso in dood parliamentarian ay ku dhamaato inay ku dhamaato laakiin fawdo iyo dhagaxtuur dalkana dan uma ahan ummadda Soomaaliyeedna dan uma ahan waxaan rabnaa marka gudoonkana aan ka codsanaynaa in xildhibaanka uu ilaaliyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Royal TV waxaad dhex joogtiin hoolkii weynaa ee baarlamaanka Soomaaliya waxaad u jeediin kooxda tirada yar leh ee fowdada ku sameynaysa baarlamaanka dhexdiisa waxaan niga codsanaynaa waxa tii warbaahiyaal Soomaaliyeed oo caalamka gaarsiinaya codka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed uma baahna maanta fowdo ummadda Soomaaliyeed waxay aragtay didiilo nabadeed waxa la diidan yahay quruxda baarlamaanka iyo sharafta xildhibaanada waxa la leeyahay xildhibaanayaal saaxiibayaal waxaynu ku kala baxnaa cod haldheeriya aan ku kala baxnaa codkii haldheerida ahaa. wakiilka qaramada midoobay ee siyaasadda Soomaaliya ayaa dhawaan xildhibaanada qaarkood ku eedeeyay inay codkooda lacag dhaafsiistaan taas oo dad badan u ifisay doorka ay xildhibaanadu ku yeelan karaan khilaafka madaxda dawladda Soomaaliya. Aweys Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho.